السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كلنتي wacan oo wanaagsan meel kastoo aad dunida aad ka joogtaan kuna soo dhowaada saaxiibayaal warbixino kooban oo ku saabsan ciyaaraha qaaradda Yurub iyo adduunka oo dhan haddii aad tahay saaxiib ku cusub barteenaan fadlan subscribe like share comment inta waa kaga fadhinaa waan ku maasan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga yaal caawa waxaan diradda saari doonaa ciyaaryahanada waaweyn oo lafdhabarta u ah kooxda Los Blancos ama Real Madrid oo iska tagi doona xagaaga markuu dhammaado gaar ahaan bisha June iyo July waa laacabo tirraxaad iyo udub u ah khadka dhexe weerarka daafaca meel walba ay ka dhisan tahay kooxda lagu magacaabo Real Madrid oo ah kooxda ugu champion-ka badan qaaradda Yurub iyo adduunka oo dhan iyadoo haysata 14 champion kooxda Real Madrid waxaa ognahay inay lumisay ciyaaryahano waaweyn kuwaas oo haddeer ka soo dhalaali lahaa kulamada ay dheelayso horyaalka La Liga iyo Champions League oo ugu horeeyo laacibka 5 jeer ku guuleystay abaalmarinta ugu qaalisan oo qof shakhsi ah oo laacib ku guuleysto Ballon d'Or Cristiano Ronaldo oo dhibaatooyin fara badan oo la soo gudbay uu ku biiray kooxda lagu magacaabo Al Nassr ee ka dhisan boqortooyada Sacuudi Carabiya kooxda Real Madrid ayaa waxay ku jirtaa khalkhal aan inaan caadi ahayn maadaama ay iska tagayaan ciyaaryahano waaweyn kuwaas oo awood iyo tirraxad u ah kooxdooda waxaa Real Madrid ay sanadihii la soo dhaafay ay la soo wareegaysay ciyaaryahano da'yar ah kuwaas oo ay rabtay inay ku beddesho ciyaaryahanada waqtiga dheer ay ku soo xamaalinaysay khadka dhexe weerarka iyo daafacaba waxaan ognahay waxaan saaxiibayaal ognahay oo kale in laacibkoodii kabtankoodii hore ee reer Spain Sergio Ramos uu asna isaga baxay isagoo hadda ku sugan kooxda Paris Saint-Germain mana awood dhaaftayna uu ku hayo kooxda lagu magacaabo Paris Saint-Germain waxaan ognahay intuu u dheeli jiray kooxda Sergio Ramos kooxda Real Madrid inuu ahaa laacib aad u dhiiran laacib aad u xamaasad badan ciyaaryahanada wax walbana u sacbiya markay wax khaldaan oo dhiirigeliya waa laacibka reer Spain Sergio Ramos marka Real Madrid wax moodaysaa in laacibada waaweyn oo da'du ay ka tabantamid inay ka saarayso kooxdeeda ay ku soo bedelayso laacibyaal da'yar ah oo ay rabto 12 sano ee soo socda inay ku xamaashaan sida laacibka lagu magacaabo Vinicius Junior iyo laacibka Rodrigo Camavinga kulli waa laacibyaal aad u da'yar waxayna ka soo qaateen waddanka Brazil kuwaas oo ahaa kuwa aan inaman caadi ahayn oo laacibo aad u shan ahaa halka laacibka khadka dhexe ee Camavinga uu ka yimid waddanka Faransa uuna yahay laacib da'yar ah oo wax badan ka bedelay ciyaarta kooxda Real Madrid waxaan ognahay uu saameyn ku yeeshay Camavinga kulankii u dhexeeya kooxda lagu magacaabo Manchester City u hogaamiyay Pep Guardiola iyo kooxda Real Madrid kulankii xilli ciyaareedkooda ku dhex maray garoonka lagu magacaabo Santiago Bernabeu kulankaas uu si waaliya uga qayb qaatay 2 gool uu dhaliyay laacibka reer Brazil ee lagu magacaabo Rodrigo marka saameynta uu leeyahay Camavinga ma ahan wax sahlan Real Madridna laakiin ogow Real Madrid waxaa ka baxaya laacibiin aad u waaweyn oo khabriyaal ah maadaama 10kii sano ee lasoo dhaafay khadka Real Madrid khad dhexe oo la barbar dhiga la waayay laacibka lagu magacaabo Luka Modric oo ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or hal jeer iyo laacibka reer Germany ee lagu magacaabo Toni Kroos ayaa qandaraaskooda dhammaan doona dhowaan markii xilli ciyaareedkan dhammaado June 30keeda waxaa la sheegayaa in labadan ciyaaryahan ay dalbaad waaliya oo qandaraas aan inaba caadi ahayn ay heshiisyo iyo lacag aan maskaxdu qaadan karin ay macnaha ay ku dalbanayso kooxdii la wareegtay saaxiibkoodii hore ee Cristiano Ronaldo kooxda lagu magacaabo Al Nassr ee ka dhisan waddanka boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaa kaloo saaxiib kooxda iska bixi doona khabiirka reer Faransa laacibka lagu magacaabo Karim Benzema oo waqti dheer 2009 ku soo biray kooxda lagu magacaabo Real Madrid kana soo caawiyay inay guulo badan ama koob badan ay ku soo guuleysto kooxda lagu magacaabo Los Blancos uu hogaamiyo haddeer tababaraha Carlo Ancelotti tababaraha khabiirka reer Italy marka saaxiibayaal waxaa ognahay in Real Madrid aysan qaabili karin in 3 ciyaaryahano oo waaweyn oo Toni Kroos iyo Luka Modric
iyo Karim Benzema ay hal xilli ciyaareed ay waayaan. Waxaan ognahay in naadiga lagu magacaabo Real Madrid markii uu iska baxay Cristiano Ronaldo sanadkaas ee ceeb fara badan ay soo gaadhay oo wax gool dhaliya la waayay oo Karim Benzema uu macnaha buuxin waayay goolashii badnaa uu dhalinayay. CR7 laacibka reer Portugal ee hadda Isbuucyadii la soo dhaafay ama bilihii la soo dhaafay oo dhan ku jira wareerka iyo koox la'aanta, laakiin hadda ku sugan kooxda Al Nassr ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. Marka laacibka Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modric waxa weydo wax macnaha shaqaynaya maahan. Waxaan ognahay inuu yahay laf dhabar inay u yihiin kooxda Real Madrid saddexdaa nin waa khadka dhexe aad u qaabeeya. Waxaa kooxdan iska baxay xilciyaareedkii la soo dhaafayna laacibka burburiyey reer Brazil ee Casemiro asagoo ka biiray kooxda Manchester United. Marka khadkii dhexe ee inaan caadiga ahayn oo soo maray adduunka oo Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro laba xilli ciyaareed oo isku xigta waa Real Madrid waxaas inay si fudud ku fasaxayso umaleyn maayo. Laakiin Real Madrid waxaysan ogoleenba inay laacibka hayso mushaar aad u badan oo u qalma. Waxaan ognahay laacibiin da'yar ah oo ku soo biira Real Madrid ay uga gabanayaan kharashaadka iyo mushaarka yarka ay bixinayso. Waxaana ka mid ah laacibka reer Faransa ee Kylian Mbappe oo isbuucii 1 milyan ka qaata kooxda Paris Saint-Germain ee kasoo jeeda uu mulkiilaha ka yahay malqabeenka kasoo jeeda qaaradda lagu magacaabo Aasiya, gaar ahaan waddanka Qatar ee rijka ah. Marka lacagoyinkaas oo dhan way kusoo biiri lahaayeen, laakiin waxaa looga gabanayaa mushaar heerka ay bixinayso kooxda lagu magacaabo Real Madrid. taas mid la midana Cristiano Ronaldo ayaa iska baxay kooxdan markii madaxweynaheedu uu price uu diiday inuu bixiyo mushaar badan. Marka waxaa kaloo kasii baxaya Real Madrid laacibka lagu magacaabo Asensio, laacibka lagu magacaabo Nacho, لاعبين badan baa kasii baxaya oo ayaguna da'yar ah. Waxaan ognahay laacibka Nacho inuu yahay boos buuxiye aad u fiican khadka dhexe, daafaca midig, daafaca bidix, daafaca santarka, burburiye wax walba uu ahaa kooxda Real Madrid. Laakiin waxaa dad badan ay sheegayaan wargeyska Marca ee kasoo baxa waddanka lagu magacaabo Isbaanishka in ay tahay xilli ciyaareedkii ugu dambeysay uu ka ciyaari doono waddanka Spain iyo garoonka Santiago Bernabeu oo waqti badan uu macnaha kusoo dhex jiray. Waxaan ognahay Nacho waqti badan la yiri iska bax soo saxanta, laakiin wax walba uu ka dalbaday kooxda yaraantiisii uu kusoo bilaabay saaxiibadiis uusan ka maarin u soo bilaabay halgan ayuu soo maray laacibka lagu magacaabo Nacho. Marka sanadkan waxaan leeyahay waa sanadkii ugu dambeysay uu iska baxayo kooxda Los Blancos uu hogaamiyo tababare Carlo Ancelotti. Macquul ma tahay in tababare Carlo Ancelotti kooxda Real Madrid ay weyso hal sano hal xilli ciyaareed ay weyso Karim, Luka iyo Toni Kroos? macquul aan ila maahan. Saaxiibayaal, warar ku soo kordha ciyaaraha halka ayaa kala socon doontaa. Habeen walba waxaana soo gelin doonaa wararka ugu xamaasada badan ee ciyaaraha. Saaxiibayaal, haddii aad tahay saaxiib weli nala soo joogay oo la daawanayay, fadlan subscribe noo saar, like-ta iyo share-tana waa noo muhiim. waa ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga.